madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii guddoomiyaashii baarlamaanka wasiirada wakiilada dhammaan mas'uuliyiinta iyo marti sharafta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka koowaad hambalyo u soo jeedinayaa labada guddoomiye ku-meel gaarka ee gaalkacyo ka wada yimid ku soo dhowaada waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabaddan taariikhiga ah ee dhaarinta xubnaha baarlamaankii 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada aqal kadib doorasho in muddo ah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin sida aad ka war haysaan waxaan xilkan ra'iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalku ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgeli lahayd mas-uuliyadda ugu weyn ee xukuumadda waxay ahayd hirgelintii doorashada aad saad og tihiin aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortabinta u leh qaranka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha la tacaalidda xaaladaha bini'aadanimada ee dalka ka jirtay welina ka jira hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah runtii ma aysan ahayn howl sahlan hase yeeshee waxaan xooggeenna isugu geynay sidii dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horreeyaan iyo daneeyaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii 17 Sebteembar 2020 si looga miro dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan kaloo shirar wada tashiya la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka midowga musharaxiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka kadib dadaal dheer iyo wada tashiyo aan la yeelanay cid kasta oo arrintu qusayso waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala eebbe lagu guulaysiiyey in golihii wada tashiga qaranku saxiixaan heshiiskii 27 May 2021 oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo goluhu yeelanayay si xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha hase yeeshee waxaa xusud mudan in aan wajahnay caqabado aad u badan oo ahaa isku dayo la doonayay in lagu joojiyo in la soo gaaro marxaladdan maanta aynu joogno waxaan waqti maal iyo maskaxba lagu bixiyey abuurista khilaafyada siyaasadeed ee golaha wada tashiga dhexdiisa ahaa faragelin joogto ah oo guddiyada doorashadu lagu hayay u adeegista hay-adaha dowladda dana siyaasadeed iyo abuurista xasarado lagu maarmi karay oo dhexdeenna ah kuwaas oo igu kallifay in aan qaato go'aamo qaraar balse dalku laga soo gudbiyey jidgooyooyin badan waxaa xusid mudan in kasta oo aan maanta joogno munaasabaddii hay-addii ugu sarraysay dowladnimadeenna lagu dhaarinayay haddana uu weli jiro harraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay-adaha dowladda qaarkood
iyo saamaynta shisheeyaha mudanayaal marwooyin halgan iyo kacakuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u hambalyaynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu eebbo ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca eebbe ay ku mareen maanta oo Ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro waxa aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku meteli lahaa golaha shacabka gobolka Gedo aan weli la soo dooran kadib markii caqabado la hor dhigay in doorashadu dhacdo weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan anigoo rajaynayo in aan dhawaan xal laga gaaro hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo xildhibaanada sharafta leh waxaan idin xasuusinayaa in aad matalaysaan shacab Soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaadhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaano u tihiin dawlad Soomaaliyeed oo ay hay'adaheedii ay saameyn adag ku yeesheen siyaasadda aan toosnayn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan falal argagixiso oo naxariis la'aan ah xaaladda bini'aadanimo oo aad u daran xasilooni darro siyaasadeed faragelino dibadeed iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag sidaa darteed waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaano in aad alla uga baqdaan mas'uuliyadda weyn ee idin saaran la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiina iyo dadkiina una doorataan hoggaan awood u leh in uu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan kor ku soo sheegay ugu dambayn waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo buujiyay dulqaad gudiyada doorashooyinka sidoo kale waa u mahadcelinayaa heer federaal heer dawlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada ciidamada ammaanka Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa ciidamada amisoon haddana loogu yeero admis si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska iyo taliyahooda xijaar oo runtii muujiyay dhabar adeeg sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dawlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay waxaan rabaa halkan inaan si shakhsi ah ugu mahadceliyo raggii odayaasha ahaa ee doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga noo bilaabay ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Mahdi iyo saaxiibkay Biixi oo arrintaas iyadoo raalli laga ahayn bilaabay doorashadaas waxaan doonayaa in aan halkan si gaar ah uga mahadceliyo xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyo saaxiibkay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen oo intii aan ku soo jirnay doorashada inoo ahaa oday wax isku wada waxaana leeyahay wadaayo hadhawaaw xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyagana waxaan leeyahay la'aantiin halkan nuur ma yeelateen gudiyada doorashada heerarkooda kala duwan waxa ay sii shaqayn doonaan intii laga soo dhammaystirayo xildhibaanada aan weli la dooran kadib loo samayn doono maamuus qoran oo looga mahadcelinayo waxaan rajaynayaa in qaybaha ka haray doorashada noogu dhammaato si guul ah degdeg iyo nabad sidoo kale waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Bayle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub mushaarkooda iyo degaankooda iyo wixii la xiriiray waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado kaftan yar saaxiibaday xildhibaanada maanta horteyda fadhiyo waxaan leeyahay ee wejiyadeyda horteyda ka muuqdo hal sano iyo bar ka hor magaciina warqadaha la ii keenay kuma jirin laakiin maanta ilaahay wuxuu qadaray inuu magaciina halkan ku soo daro marka waxaan idin leeyahay nasiibaad leedihiin ilaahay u mahadceliya waxaan leeyahay
khayr ayaa ku jirto ayaa ku jiro in qayladii idinka yartay aad ku hesheen kursiga maanta ku fadhidaan waxaan kaloo rabaa in aan xuso wixii hadda ka dambeeyo warka wuxuu noqonayaa xildhibaanadii ii geeya xildhibaanadan waxaan leeyahay dhibkii idinka soo gaaray doorashada dhuunta ku dhegina dadka musharaxiinta u fududeeya howlahooda hambaliyo mar kale Ramadaan mubaarak Soomaaliya ha noolaato waxaan idin leeyahay soo dhawaada